maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay guulihii wax ku oolka ahaa ay ka gaadheen ciyaaryahanada gobolka Awdal koobkii shalay toole ku soo gabagaboobay caasimadda Soomaaliland Hargeysa. هذه لها كسوكو وحن halkan uga mahad celinay bahda Somali News waxaan aad ugu faraxsanahay guusha xalka gobolka gaadhay run ahaantii oo ahayd mid xidil dheeraad aan gelinay ilaahayna nagu guuleeyay waana hibo eebba ku siiyay habeen la iska maqaadayo xid maalin taariikhiina way noo ahayd wana ku ugu horeeyay in gobolka uu soo koreyno khaasatan anigoo sanadii 4 bilood haya inaan gacanta ku soo dhigo kubkii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhigtay ciyaaraha gobolada aad bay farxad gelinaysaa aad baan ugu mahad celinayaa xulka gobolka Awdal dhamaantiisba qaybihiisa kala geedisa aad xalay u damaashaadaysay aad baan ugu faraxsanahay uguna soo dhaweynaynaa damaashaadka ay sameeyeen waxaan ugu baaqaynaa marka xulka gobolka soo galayana in sida ay si fiican u damaashaadaan u soo dhaweeyaan magaca ay gobolka u soo hooyeen dhalinyaradoodu ay ku taageeraan taageero mugle shalay taageerada mugle ay gobolka Awdal ay isla soo garab taageen xulkooga aad baan ugu mahad celinaynaa taageeradii nimeeyda khasaarin wad guuleysateen magaci gobolka iyo xulka gobolka labaduba korbay u kaceen dhagax waxa la yidhi meel dhow dhagax la tuuray meel dhow ayuu ku dhacaa dhawaqna meel dheer dhawaqi gobolka meel fiican ayuu gaadhay haddii aqoonta uu noo tirinayay maanta ciyaarahana innaga ayaa la noo tiriyaa dhanka kale maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane oo warbaahintu wax ka weydiisay dadka abaaruhu ku saameeyeen gobolada bariga ee lagu soo daabulayo gobolka Gibiley iyo Dilaa waxyaabaha uu kala socdo ayaa waxa uu yiri sida tan baan uga warqabnaa gudida abaaraha gobolka culumada salaadiinta intuba kormeer baran oo kala baxeen hawshu way socotaa waxaan dadweynaha iyaga ugu baaqnay horay imkana ugu baaqaynaa in reer walba reer la dago waxa haystaan oo la cuno waxba ayna ka hakran waa naftaad qofkani cid kale ma naftani waa nafs ku mid ah wadad aan wada dhashaynu nahay wadad wadanka leh hatay wada laynu nahay wadad aynu kala maarmeyn nin walba wuxuu hayo inuu u jeexaya la doonayaa sidaas ayuuna ilaahay noogu naxariisanayaa kolkan inagu isku naxno ay naxariista rabbina imanaysa dhanka kale maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane waxa uu baaq ugu diray gobolka Awdal guud ahaan shacabka ku dhaqan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ee bariga Soomaaliland naxariisan marka walaalihiin naxno aad baan ugu mahad celinay dadweynaha gobolka Awdal iyo degmada Boorama ku nool waxaan leeyahay gurmad laf dhabar ah ayaa la iniga baahan yahay haddii intayni soo gaadhay tahay iyo haddii intii hadhay tahay labadaba Umar Shaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Soomaaliland Hargeysa.